wafdi ballaaran oo ka kooban guddi hoosaadka golaha wakiilada u qaabilsan shuruucda cadaaladda garsoorka iyo xuquuqul insaanka oo hogaaminayo guddoomiyaha guddidaasi xildhibaan Yaxye Araarse isla markaasina uu helinayo taliye ku-xigeenka ciidanka asluubta ayaa kormeer xogogaal noqosho ah ku soo maray xabsiyo ku yaala gobollada Saaxil iyo Maroodijeex iyagoo socodkooda ka bilaabay xabsi cusub oo laga hirgeliyey magaalada Hargeysa gaar ahaan deegaanka Halleeya. waxaa kaloo ku yaala madbakhi dhakhtarkii caafimaadka meeshii aarniga loogu xaraynayey xafiisadii ma laga maamulayay maamulka xafiisada waxaana laga yaabaa haddii ilaahay ku inuu 650 inuu qaado ku talagalka taasoo wax badan kaga maarmi doono buuxdhaafkii maxaabiista insha allah inuu laga soo fuudayn doono kan waa jeel casri oo kuweenii hore gaboobay maaragtay ka duwan lana jaan qaadaya maxay standardka caalamiga insha allah wixii kala iyo tusaale anaguna waan soo dari doonaa si uu la jaan qaado maxay haydeen ka caalamiga دورين حقوق الإنسان كي أن لقوا تعديل نك هذا محبوس كا أو ده حقوق الإنسان. intaasi kadibna waxay uga sii gudbeen xabsiga dhexe ee Mandheera waxaana indhahooda ku soo arkeen xaaladda maxaabiista iyo guud ee xabsiga waxay halkaasi warbixin ballaaran kaga dhageysteen taliyaha xabsiga dhexe ee Mandheera isagoo dhankiisa si waafiye uga warbixiyay xaaladda maxaabiista iyo xabsigaba. أنا مقدم أن أقول لك شرفت كلنا نقطي قلت لك برنامج كبير قريب صاير قلت له قبضة والساق هي عدالة ونسود وينه ويوصل عندنا هنا كورجان حاد حبسية الدرفاية لا ونكبر الني عاد بنو مقدم أن واحد شيء نويه تورتو ده إن أنا يقدرون إن يحكون دوران إلهي إلى كتسا سحب في عن مقطع وكورجان أو نور السوي ما سي حبسية الحق مديرة taasoo aan u nimid inaan u koorgallo oo ogaano xaaladda dhabta ee ka jirta xabsiga duruufaha ku gadaaman iyo tabashooyinka yaalla inaan u koorgallo warbixinna u gudbino golaha wakiilada haddii ilaahay yiraahdo si wixii tabashaa wax looga qabto maadaama aanu nahay guddidii golaha wakiilada ka socotay ee xuquuqul insaanka iyo cadaaladda. wafdigu waxay intaasi kadib u jihaysteen iyagoo ku guda jira safarkooda dhanka iyo magaalada Berbera oo xarun u ah gobolka Saaxil waxaana gaareen xabsiga magaalada Berbera iyagoo sidoo kale warbixin ka dhageystay taliyaha xabsigaasi Xasan Arbici waxaana indhahooda ku soo arkeen xaaladda xabsiga qadiimiga ah ee Berbera. aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa wixii ay noo qaban karaan waxaan ka codsanaynaa inay noo qabtaan sida ugu dhaqsaha waxa hadda aanu hortaaganahay xabsiga dhexe ee magaalada Berbera xabsigaas oo Turkigu dhisay 1818 waxa weeyaan guddidii maxay ahayd xuquuqda iyo cadaaladda iyo garsoorka iyo xuquuqul insaanka oo waxaanu u nimid xaqiiqo raadis ka warhayn iyo si aanu ogaano duruufaha ku gadaaman maxaabiista ku xidhan iyo meesha ay ku xidhan yihiinba sida ay tahay wixii xog ah ee aanu helno ama aanu aragno waxaanu la maxay ahayd u gudbin doonaa hay-adaha ay khusayso ee maxay ahayd xuquuqul insaanka iyo cadaaladda iyo dowladda inteeda kaleba haddii ilaahay yidhaa. wafdigani ayaa intii ku sugnaa xarunta gobolka Saaxil ee Berbera waxay gaareen xabsiga carruurta ee Minja Caseeye ee magaalada Berbera kaasoo dib u dhis weyn ay ka wadaan ciidamada asluubtu. ranjigii baa socda bilowgii baa socda halkan markaa waa xabsigii koobaad galliinkiisii iyo hawshiisii way noo dambaysaa qaaradiisu waa kan halkaas waa receptionkii kan waa hubkii kan waa taliyihii kan waa qaybta caafimaadka ama gaariga inaga toosan halka waa ciidankii iyo stoolkii raashinka halkaas waa kitchenkii ciidanka iyo maartay maxaabiista wax loogu karinayay
halkana waynu geli doonaa waxaan ku dambayn doonaa iskuulkii oo isna qaybta dambe ah halkani markaa waxay leedahay deyrkaa koow deyrkii labaad oo kan imigaan gelino xabsigii inaga xigaa kii saddexaad wakaa oo dambe waa deyr kale oo halkaana wuxuu ka kala go'an yahay iskuulkii iyo isaga si loo dhaqan celiyo wax loo baro hawshoodii iyo waxooda uga bogtaan ayaa ay ugu tala gashay ciidanka asluubtu arrintaana waxaan filayaa sida aad maanta arkaysaan inaad dee wax badan oo laga qabtay ay indhihiina ka muuqdaan degdegsiimana ka muuqdaan waxqabadka asluubtuna oo noqon doono mid indho dheer iyo dhega dheer loo yeelan doono sidaad idinkuba iminka maanta u soo dhiirateen inaad wax ka fahamtaan bal ciidanka asluubta xaalkiisa iyo la socoshadiisa iyo waxqabadkiisa waxaan annaguna maadaama aanu guddidii xuquuqul insaanka iyo cadaaladda nahay wixii tabasho ah iyo wixii aanu isleenahay uu ka dhiman yahay ama baahida taalla meesha waxaanu u gudbin doonaa insha allahu hay'adaha ay khusayso ama ha noqoto dawladda ama ha noqoto maxay ahaydeen NGO-yada wasaaradda cadaaladda kuwa caalamiya iyo kuwa maxay ahaydeen gudahaba NGO-yada wax alla wixii aanu isleenahay way u baahan yihiin oo way ka dhiman yihiin waanu ka howlgelinaa haddii eebba idmo ugu dambaynna wafdigani waxay kulan la yeesheen maayirka magaalada berbera mudane cabdishakuur maxamed cidin iyagoo isxoogogaal waraystay kana codsaday inuu ka caawiyo maxaabiista magaalada berbera dhinacyada caafimaadka iyo nadaafadda dhankiisa maayirka oo aqbalay arrintaasi ayaa ballan qaaday inuu ka haqabtiri doono adeegyadaasi maxaabiista kala duwan ee ku xidhan xabsiga berbera